muuqaal ku saabsan shakhsiyaad loo yaqaano Carlos Rajakel. Halkani waa kanaalka dunida. Waxaa loo yaqaanaa ama uu ku soo caanbaxay Carlos waxa uu dhashay 12 Oktoobar 1949. Asalkiisa waxa uu ka soo jeedaa Venezuela. Waxa uu ku dhashay caa'ilo aad loo yaqaano oo qaniya. Wuu islaamay kadib waxa uu aaday Ingiriiska si uu ugu soo barto Ingiriisiga. Ma baran Ingiriisiga oo kaliya, laakiin waxa uu bartay luqad waliba si fiican uu ugu hadli jiray luqadaha kala duwan oo ay ka mid yihiin Carabiga, Talyaaniga, Faransiiska, Ruushka iyo Isbaanishka. Kadib waxa uu safray dhanka Moscow ee dalka Ruushka isagoo rabay inuu ku biiro jaamacadda Moscow. Kadib Carlos halkaas waxay isu barteen wiil dhalinyaro ah oo isna wax ka baranayay jaamacadda Moscow. Wiilkaas waxa uu u dhashay waddanka Algeria. Waxa uu ahaa magaciisa Maxamed Budiya. Carlos waxa uu aad ula yaabay oo aad ula cajabay afkaarta uu xambaarsan yahay Maxamed Budiya oo si kadis ah u noqotay mid la mid ah tii uu aaminsanaa Carlos. Kadib Carlos waxa uu ku soo biiray dhaqdhaqaaqa Fatah ee Falastiin oo uu saaxiibkii Maxamed Budiya uu ka mid ahaa. Waxay go'aan ka gaadheen inay u gargaaraan Falastiin. Kadib markii uu Fatah ku biiray, Carlos waxa uu bilaabay tababaro ay Fatah ku sameyn jireen waddanka Urdun ee waddanka Holland oo ah saldhigga maxkamadda caalamka. Waxa kale oo Carlos afduubay diyaarad fadhiday oo ka kacaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Diyaaraddaas waxay siday dalxiisayaal Israa'iiliyiin ah. Carlos hadda waxa uu ku jiraa jeel ku yaalla waddanka Faransiiska oo keligii meel ku xidhan yahay. Carlos sirdoonka Faransiiska ayaa ku qabtay waddanka Suudaan sanadii 1995.